sawirkan waxaan bilaabay anoo 10 jir ah marka waxay igu yimaadeen markaan ardayga ahaa ayaan aad u jeclaa inaan wax sawiro marka sawirka ayaan sii waday anoo aad u daayir markaas waxaan la kulmay dad sawira gacanta sawirka gacanta waxaan ku dareemay inaan sii wadi karo waxaan la kulmay dad macallimiin ah oo ka mid yahay jaamacad Nagor markaa Soomaaliya wada joognay jaamac ayaa igu dhiirigeliyay inaan heerkan sii gaaro maanta saab igu waaniba inaan socon karo waxaan inay yihiin wax fiican oo bari aan magac ku yeelan doono horumarka gaari doono dunida marka sidii aan dhinaciisa soo go'ay artiga xagee markaasaan waxbarashadii marka waxay noqotay goos inay wax u wado marka artiga marka ku batay markii ama roobda ama barwaaqo la gaaro dhulka la isku soo baxaa oo markaas la ciyaaraa sartaasi badda ku taal xamar waa meel taariikhi ah ilaa iyada dhab xasuusaa ka 200 sano dhisan tahay haddii ay taagan tahay maqlataa sartaas iyada runaha ay jirtaa way jirtaa ilaa sidii u taagan sidii bay taagan tahay sidii looxaasi alif rahmaan ba korkaalaha marka xusuus way hadda waxaan maleynaa dadka halka ku nool وهذا أكبر بار. لو ويلا هرتا عند لا يجوكتو. لو قبضت. لو ذو ويلا أرنتا كل حجران. لو ذو ويل بحجران. كل جيران. لو ذو way ku tartamaan sidii hadda aniga walaalkay waxa jirta saasa u tartami jirnay Saciid Aamir Reelaad oo isla wax sawira oo iska jooji hadda laakiin inuu ku soo noqdaa aan rajeynayna aan soo celino labada wiil sidii waay hala hadda Aamirka sida aan ku socday ku socdaa oo macnaha sidoo u diyaarinayo sidoo fikradaha uu sameeynayo wartaada ma santahay su'aashaasi way fiican tahay waxa aan mar walba ku riyoon jiray inaan artigan heer fiican ka gaaro oo Soomaali wax ugu taro oo magac weyn ku yeesho aabbahay marka igu dadaali jiray gacan igu siin jiray oo dhigi jiray waxa gaaraysaa meel fiican marka uu gacan u siin jiray oo igu dadaali jiray inaan heerka maanta joogin gaaro marka waxaan isla waayay aabbahay iyo heerka aan maanta ila rabay asaga inaan isku helo